Furitaankan ayaa noqonaya markii saddexaad ee dib u habeyn iyo casriyeyn lagu sameeyo maktabadda akhriska iyo qoraalka ee Maanmaal oo ay gacanta ku hayso Akaademiyadda Maanmaal oo ah urur dhalinyaro u dhaqdhaqaaqa horumarinta arrimaha bulshada qaybihiisa kala duwan. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco iyo xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay maktabaddani iyo dadaalada ay dhalinyaradani ugu jiraan horumarinta akhriska iyo qoraalka. Gudoomiyaha Akaademiyadda Maanmaal Cabdisamed Axmed Xuseen iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka Akaademiyaddaasi Maxamed Xamse Cali. madashan quruxda badan ee qiimaha badan ee caawa mas'uuliyiinta iyo marti sharafta qaybta ka tahay waxaanu xariga kaga jaraynaa kuna daafureenaa xarunta cusub ee Maanmaal iyo maktabadda Maanmaal oo ah maktabadda kaliya leedahay degmada Burco iyo guud ahaanba gobolka Togdheer. run ahaantiina raritaanka aanu daafureyno maktabadda Maanmaal iyo library-gu waa markii saddexaad ay korodhay. waxa la aasaasay muddo xilligan caawa aynu hadlayno ka hor 2 sano iyo badhayd. waqtiga la aasaasayna waxa lagu aasaasay cadad tiro buugaag ahayd 60 buugaag. maantana waxay sii socotaa in ka badan 2,000 buugaag. run ahaantiina waa markii saddexaad san hore u sheegay ee intay buugtu ay deeq weeyda ama buuxsanto aanu ballaarinay. marka caawa markii saddexaad aanu maktabadda ballaarinayno inta buugteedu iyo cadadka buugteedu korodhay badatay aanu ballaarinayno. marka waan uga mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta qiimaha badan ee bulshadana waxaan ku soo dhaweynaynaa maktabadda Maanmaal oo ah maktabaddii gobolka. bulshada reer Burco waxaan ogeysiinaynaa in Akaademiyadda Maanmaal oo maktabadda Maanmaal xukuntayna ka soo rarnay goobtii hore ee u deganeyd ee u dhaweyd jaamacadda Alfa. hadda aanu keennay agagaarka fooqa Maaweel oo dhinaca galbeedka xiga agagaarka fooqa Maaweel markaas oo isaato waa helaysaa maktabaddii Maanmaal. bulshada waxaan ogeysiinaynaa taas waan ogeysiinaynaa mar labaad iyagana waxaan u mahadnaqaynaa oo boogaadin naga mudan hambaliyeen naga mudan oo runtii hadii la wada logolaado sharaf naga mudan maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi maayir ku-xigeenka golaha deegaanka iyo xogayaha degmada Burcaba dhammaantood wada mahadnaqaynaa maamulka dowladda hoose oo runtii gacan ku haya maktabadda ka kafeeyo waxyaabo badan oo u baahato garab gal siiya iyagana waa mahadnaqaynaa insha Allah rabbiidmo. geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco iyo sidoo kale xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco waxaana dhammaantoodba bogaadiyeen dhalinyaradan. ilaahay baa mahadle noo suurtageliyay inaanu caawa qayb ka noqono ee furitaanka wejigii saddexaad ee Akaademiyadda Maanmaal oo runtii ah ee maktabadda runtii sida tooska ah maanta gobolka Togdheer uga shaqeysa. doomiyuu sheegay saddexda marxaladood ay soo martayba waa ogaa. taas waxay muujinaysaa dadaalka iyo juhdiga iyo waqtiga ay geliyeen inta uu leeyahay iyo isbedbedelkaas runtii ay sameeyeen iyo firfircoonida ka muuqata dhalinyartan gacanta ku haysa runtii horumarka ay sameynayso inta badan cid ka maalgeliso oo gacanta kula jirta oo haysa ma jirto. kaliya waa iyagu inay isu tageen contributionka ay iskaga bixiyaan oo runtii iska wax u qabso ay ku shaqeeyaan. runtii taasna waxay keenaysaa inay yihiin dad u heelan oo doonaya inay bulshadooda wax soo gaarsiiyaan. runtii aad baan ugu hambaliyeynaynaa dadaalka iyo juhdiga aad geliseen. jasaakumullahu khayr wa jasaa. ilaahay ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo baan leenahay insha Allahu tacaala. dadaalka faraha badan aad gelinaysaan wax akhriska maktabadda kaliya ee maanta wax laga akhristay Burco ay tahay ee aad saddexda meelood imaka ka soo guurteen caawa halkii saddexaad aynu xariga ka jarayno meel aad leedihiin oo rasmi ah oo aydan ka guurguurin in aad heshaan ayaanu ilaahay idinka rajaynaynaa. waana ku dadaalaynaa wixii awoodayada ah haddii alla idmo inaanu iskiin garab taagno. waa u baarigaynaa waa u ducaynaynaa waa u hambaliyeynaynaa waa soo dhaweynaynaa. run ahaantii Akaademiyaddan Maanmaal marka dhinaca tabarafadka laga eego ayaa akhrisku ay ka yihiin kaalinta koowaad. dhalinyartan Akaademiyadda Maanmaal oo dhalinyar firfircoona oo sida imka marayso ama marxaladda ama tadawurka waxa la yiraahdo ee ay sameeyeen ee sida qaalibka meesha ka muuqata waxa weeye marxaladii saddexaad ay marayaan. waxay ka bilaabeen sida sheegeen 60 buug caawana waxay marayaan 2,000 in ka badan. waa idin garab taaganahay horumar iyo tadawur muuqdana insha Allah tacaala gobolkan iyo dalka waa ku soo kordhinaysa. wax akhriskuna waa ashyaada ama ibafurka ama wixii dadka bini aadamka
mugdiga kaga jiray oo uu u biniixinayo oo uu wax u sheegayo oo horumar iyo tadawur ku samaynayo. وخالد بكيلة ورarka MMTV برو